Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabay mar kale kusoo dhawaada Somali Arsenal Fans TV. Wararka ayaa waxay sheegayaan Yuri Tielemans in maanta Leicester ay u ogolaatay inuu go'aan qaato, ayaga oo weliba weydiin doono in uu joogi doono oo saxiixi doono heshiis kale, ama halka sane ee u dhiman inuu joogayo dabeedna uu free ku bixi doono. Manchester United ayaa sidoo kale isku dayi doonta inay saxiixdo Yuri Tielemans haddii ay ku guuldareystaan inay helaan Frank de Jong isbuucyada soo socda, balse maanta waxaan sugnaaba waa go'aanka uu qaadan doono Yuri Tielemans. Dhanka kale, Arsenal ayaa maanta la xiriirtay agentiga Lucas Paqueta, ayagoo isku diyaarinayaan inay u bandhigaan lacag ay rabaan inay ku saxiixaan ciyaaryahanka. Lucas Paqueta, oo haatan ciyaaryahan u ah kooxda Lyon, ayaa season-kii u dambeeyay dhaliyay 11 gool halka uu caawiyay 7 gool. Waxaan ognahay Edu inuu aad ugu fiican yahay dhamaystirka heshiisyadan oo kale, iyo inuu kalaabka kusoo daro playaal quality leh, haba u badnaadaan Brazil. Balse waxaa isweydiin mudan lacagta ay Arsenal ku bixin doonto Lucas. Ciyaaryahanka ayaa qiimihiisu yahay 65 ilaa 70 milyan. Waxaa kaloo hadalhayn mudan sababta Arsenal ay u saxiixayso Lucas, maadaama booskiisa loo hayo ilaa 3 playaal oo ciyaari karo, oo ay ka mid yihiin Martin Odegaard, Fabio Vieira. Inkastoo ay Arsenal lacag aad u tiro badan ay suuqa ku bixin doonto, hase ahaatee saxiixyada ay sameynayaan ayaa la rajeynayaa inay noqdaan kuwo saameyn yeesha. Sidoo kale, Arsenal ayaa ku noqotay Moussa Dembele, 26 sano jir u dhashay France, sidoo kale u ciyaara Lyon. Player aad u fiican, 21 gool isku dardar ah ayuu xiray season-kii u dambeeyay, wuxuuna caawiyay 5. Hase ahaatee, waxa uu ka mid yahay wararkiisa kuwa aan sugnayn. Sidoo kale, wararka sheegaya in Arsenal ay raadinayso Memphis Depay oo haatan u ciyaara Barcelona ayaa isaguna ah warar suuqa iskaga jiro oo aanan sugnayn. Lisandro Martinez, oo u ekaa isbuucyadii lasoo dhaafay inuu Arsenal ciyaaryahan u noqon doono, ayaa haatan aad ugu cadcad inuu Manchester United u wareegayo. Wararka ayaa waxay sheegayaan in Manchester United aad ay ugu dadaaleyso inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u saxiixdo ciyaaryahanka Lisandro Martinez, ayagoo welibana diyaar u ah inay u hormariyaan Ajax lacag dhan 45 milyan iyo weliba dheeraad, taasoo aad uga sareyso qiimaha lagu hadalhayay suuqa maalmahan ee 30 ilaa 35 milyan. Haatan Arsenal ma dooneyso inay ka bixiyaan ciyaaryahanka lacag intaa dhan, waxayna u muuqataa inay ka gaabsadeen, sidaana weli aysan u sii xiiseyneynin inay saxiixaan. Aniga ahaanteydana ma arko in Arsenal ay 40 milyan ama ay 45 milyan ay ka bixiso Lisandro Martinez, waayo ma ahan player mar walba lagu soo bilaabo ciyaaraha badankooda. Arsenal waxay raadinayso waa kayd, mana arko in ay ka bixiso lacag intaa dhan. Balse adiga sideed u adagtaa Lisandro Martinez in Arsenal ay 45 milyan ay ka bixiso? Mase u qalmaa lacagtaas, maadaama Kieran Tierney uu noqonayo ama uu yahayba player mar walba Arsenal u bilaabi doono inta uusan injury gelin. Sidoo kale, Arsenal ayaa waxay jaanis siinaysaa Reiss Nelson, kaasoo season-kii u dambeeyay loan ku maqnaa. Reiss Nelson ayaa ah player talent leh aad u fiican, inkasta oo weli uusan helin jaanis talentigiisa uu kusoo bandhiga Arsenal garoonkeeda. Hase ahaatee, season-kan ayaa wuxuu u noqon doonaa tartan uu boos kaga cidhiidhsado Arsenal. Maantana waa inaga intaa asxaabay, kulan dambe oo xiiso leh. Ha iloobin inaad nala wadaagto fikradaada.